Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaba waxaan kala maqnayn muddo hal bil ah. Ugu dambeyntii waan soo laabanay. Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay. Haddaba muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wiilkii ugu yaraa ee lagu xukumay dil toogasho. Haddaba kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. wiilkan yar ayaa lagu magacaabaa George Steiny, waxaanu ahaa wiilkii ugu yaraa ee lagu xukumo dil taariikhda Mareykanka. Sidoo kale wiilkan yar wixii lagu dilay wuxuu ahaa kursi ay ku xiran tahay koronto. Waxaa la xukumay isagoo jira 14 sano sanadku markuu ahaa 1944 iyadoo lagu soo eedeeyay inuu dilay 2 gabdhood oo cadaan ah. Sidoo kale gabdhaha uu dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray Biddy June iyo Mary. dhacdadan waxaa ka dhacday deegaanka Kalkulu ee koonfurta Mareykanka, iyadoo labadan gabdhood laga helay meel doox ah waxaana la raadinayay ilaa hal maalin. kadib markii la baaray gabdhahan yar wixii ku dhacay, waxaa la ogaaday in gabdhahan yar aad loo qaraacay, jirkoodana la jarjaray. kadib waxaa la baaray gabdhihii shaqtiyadii u dambeeyay ay la kulmeen, waxaanu ahaa wiilkan yar. waxaa la weydiiyay markii aad gabdhahan yar la kulantay maxaad aragtay. wuxuu yiri waxaan la kulmay iyaga oo baaskiil wata, waxaana weydiiyay halka ubaxyada lagu iibiyo. kadib askartii hadalkiisa waxay ka dareemeen madmadow, sidaa darteed way xidhan oo isaga ayaa looga shakiyay inuu dilay labadan gabdhood. wiilkan yar xilligaa looma hayn qof ku cadeeya oo markhaati u noqda. dhowr daqiiqadood kadib waxaa la geeyay wiilkii yaraa maxkamad, kadibna waxaa lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada. 3 bilood kadib wiilkii yaraa waxaa la gaaray xilligii la dili lahaa ay taariikhduna ahayd 1944. kadib wiilkii yaraa waxaa la weydiiyay maxaad jeceshahay oo lagu keenaa. kadibna wuxuu dalbaday buug, kadibna waa loo keenay buuggii. kadib markii la geeyay qolkii lagu dili lahaa waxaa ka weynaaday kursigii. askartina waxay garan waayeen waxay sameeyaan, kadibna waxay sameeyeen buuggii uu watay ay dul saaran kursiga, kadibna waxaa ku dheheen fadhiiso. wiilkii yaraana halkaas ayaa lagu dilay. haddaba muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. haddii aad muuqaalka ka heshay like noo saar, sidoo kale subscribe channelka noo dheh si aan u gaarno 5,000 subscribers.